bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada warka subax ee reediyo rugsan. qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xukuumadda federaalk oo sheegtay inay diyaarinayso sharciyo u gaara maxaabiista, gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo ku baaqay in la dhiso xabsiyo u gaara caruurta, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk oo ka hadlay caqabadaha hortaagan in la soo celiyo lacagihii shilinka Soomaaliga ee dalka u lahaa, maamulka Somaliland oo uga digay dhalinyarada ka soo jeeda gobolada waqooyi inay u safraan magaalada Muqdisho, maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay sababta uu mamnuucay adeega Forex, shaqaalaha maamulka Puntland oo ka cabanaya mushaar la'aan. akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan asgar Turkish ah oo lagu dilay dagaalada ka socda gudaha dalka Liibiya, iyo nin ku eedeysnaa in uu dhaawacay imaam masjid oo dacwadiisa dib loo dhigay. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walbo aad joogtaan. waa subax axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 23 Febraayo sanada 2020. anigoo Faadumo Abuukar Cabdi ah ayaa warka saaka idinla socodsiinaya, waxaana ii farsameynaya Cabdiraxmaan Galad, waxaa soo saaray Ilyas Daa'uud. markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan. xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay diyaarinayso sharciyo u gaara maxaabiista, iyadoo dhinaca kalena gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir uu ku baaqay in la dhisayo xabsiyo u gaara caruurta. mahad mutawakil ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. muuse macalin qalinle gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegay in loo baahan yahay in xabsiyada dalka laga hirgeliyo goobo u gaara caruurta, maadaama ay jiraan sida uu sheegay caruur mararka qaarkood gasho dambiyo kala duwan, loona baahan yahay in la helo goobo si gaar ah loogu haayo si aan bulshada mar kale loogu sii dhexdeen. gudoomiye muuse macalin qalinle ayaa tusaale u soo qaatay in dhowaan uu sii daayay ilaa 2 caruur ah uu sheegay inay galeen dambiyo muuqda balse aysan jirin meelo lagu hayo. haba yaraatee 2 qol oo u gaar ah caruurta ama da'yar inaan halkan isugu imaano. arrintaas walaas weyn ugu haysaa. sidaa ka warqabtaan xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda qodobka 19aad wuxuu qeexaa da'da dembiga ay galaan mas-uulka ka ah. waxa uu leeyahay 14 jir. wixii ka hoosa mas-uulka ma aha dembiga ay galaan, hase ahaatee 14 jir waxa uu mas-uul ka yahay dembiga uu galo. dastuurka jamhuuriyadda qodobka 29aad uu nasakhay arrintaas, waxa uu ku simay da'da 18 jir. laakiin mushkilada jirta waxa weeye waxaa imaanayo da'yar haddana geystay dhibkii, oo da'yartu waxay geystaan inta uu geysto qofka weyn intuu geysto geystaan. marka 18 jirka inuu ku dhex xirnaado dadka waaweyn oo laga yaabo dunuub kale inay galeen oo qaar ay dil geysteen, weliba 18 jirkeena waa garanaysaa aan koriinshaha fiican aan qaadan ee bartiisu aad u yar tahay oo laga yaabo inuu tacaddi kala kulmo. arrintaas waxaan u malaynayaa arrin laga garaabo waaye, mana loo dul qaadan karo. waxaan codsanayaa hay-adaha u xil saaran xabsiga waa kooban yihiin. waxaa u horeysa wasaaradda cadaaladda, maxkamadda rafcaanka, taliska asluubta, guddigii cadaaladda waa joogaan ee baarlamaanka, contribution xitaa ha laga aruuriyo intaas iyo inta caawa joogta. 2 qol waa ku filan tahay in loo sameeyo, iyo meel ay ku ciyaaraan oo wanaagsan, iyo sariiro wanaagsan, iyo nolol wanaagsan in looga dhex sameeyo xabsiga. dhulkaasna waa haysanaa. inta haddaanu samaynin daaro waaweyn oo sameynaa wax baynaan sameynayaan malaha. carruurtaynu waa ku dhiban yihiin xabsiyada. 2 isbuuc ka hor 2 carruuraan ka sii daaya xabsiga. waxayna geysteen dembi muuqdo loo jeedo, laakiin ma gaarsiisnayn da'dii mas-uulka ka naqa lahaayeen dembiga, mana ku ogi xabsiga dhexe meel gaar oo lagu hay karo lagu xiri karo. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay inay wado wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya dhamaystirka sharciyo u gaara maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si ay u helaan waxyaabaha xaqa ay u leeyihiin, sidoo kalena loogu mamnuuco waxaysan xaqa u lahayn, taana lagu dadaali doono. wasiirka cadaaladda ayaa intaa ku daray in tababar ay iska kaashanayaan booliiska Soomaaliyeed iyo wasaaradda cadaaladda loo sameyn doono qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa sida gaarka ah ugu howlgala
talisyada saldhigyada ah ay ku yaalaan magaalada caasimadda ee muqdisho. tababarkaas waxa ay ku qaadan doonaan sida uu sheegay siday ula dhaqmaan marka la soo qabto caruur aad u daayar. xabsiga dhaxay meelo kala shuruucda dalka ku yaalo dadka maxaabiista ku jiro waxyaabo sharciga u ogol yahay iyo waxyaabo sharciga u ogoleena jirto. marka inaan ku dadaalno inaan raacno shuruucda xabsiga u yaalo waxyaabaha la ogoleen inay la mamnuuco waxyaabaha sharciga u ogol yihiin in la fududeeyo ee loo baahan yahay. waxaa ka jira tababara iyo iskuul oo taliyaashii hore nihalgeliyeen aan ogahay adigana hadda inaad wado. waxaan rabnaa inay ka soo baxaan dad wax bartay hadhowdi markay ka soo baxaan la tartami kara dadka jaamacadaha galay maadaama hadda manaahijtii wasaaradda waxbarashada hadda ay qaateen tababarkaas iyo tacliintaasna in lagu dadaalo. waan ogahay ciidamadii hadda tababarka dhammaystay inay ku jireen xirfadley oo loogu talagalay inay dhisaan xarumaha dowladda maarayahana maamulidooda wakaalada. waxaan doonaynaa insha allahu dadkaas in looga faa'iidaysto. hadalkan ayay ka jeediyeen mas-uuliyiintan ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyagoo xalay muqdisho ugu qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeynayay dabaaldegga 50 sano guuradii ka soo wareegatay asaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe, wasiirka wasaaradda cadaaladda Abukaate Xasan Xuseen Xaaji, xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, saraakiil sareeyaal, saraakiil xigeenno, dableyaal ifle ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ugu horeeyay taliyaha ciidanka asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay caqabadaha hortaagan in la soo celiyo lacagihii shilinka Soomaaliga ee dalka uu lahaa. Ilyas Daa'uud Xasan ayaa warkaan inoo faahfaahinaya. dr cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay lacagihii shilinka Soomaaliga ee dalka uu lahaa iyo sida lagu soo celin karo ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay sanadihii dambe xoogga ay saartay sidii lacagahaasi dalka dib loogu soo celin lahaa. waxaana uu sheegay in lacago shilin Soomaaliya wasaaraddu ay diyaarisay balse ay jiraan caqabado horyaalla wasaaradda ee ku aadan dhaqaale in loo baahan yahay. waxaana uu tilmaamay in marka la helo lacago dhaqaalo lagu bixiyo samaynta lacagahaasi in lacagaha shilinka Soomaaliga ee dalka uu lahaa dib dalka loogu soo celinayo. oo lacagtii Soomaaligii iyo sarifka iyo dhibaatada labadaas keenayaan. horena runtii waa lacagta sarifka lacagta Soomaaliyeed keenidii waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee dowladda isku xaqiiqsan ka mid tahay yareeyeen cabisku sida kuwa dalowda shay'ii Soomaaliya waliba inuu kumeedan qaraysan anagoo pound isoo ka qalo badan nagu isoo qiimo badan yaa oo waxa qarayna dollarku yahay waxaan qaraynayaa 3 shilin iyo bar yaa yani qiimaha uu lahaa waxa loo jiray 100 madow baa loo jiray 100 madow بقول مدوب بلوري بقول مدوب وها وحنا شقلاي إنت أركتابه يرجع كذا بقول مدوب مركا أنا وقيمها سمعت حياة كجلو أو دولة لماذا الصومالي وحياة كوكو تاويهاي لعكتا دولي تلكوي توكش قيسو ده الوين ما نوجر إلى السعودية لكن واحد دوري أنا لوكان لبعض عن صوم مرة وحياة تحسيسي وحياة فرق بدل اللغة سيان العو صوت الكريم لعلت واحد بدن أو عاوية يو بان هاي سيستم ينظام بيو بان هاي الربح كرنا يو بان هاي بانك سنترال بانك يجيب له هذا يو بان هاي وزارة المالية يجيب له هذا يو بان هاي ماركت سيستم كيف شغال يجيب له رسوم يو بان هاي مركز تاسي وحنا قلنا في لواس سنة إلا قصور شقيا الربح وإلا قصور شقيا بانك أدوك iyo gaar ahaan banka muxuu ahayn banka
ama lacagta adduunka banka fanka lacagta adduunka ayaa nagala soo shaqo waa soo dhammaynay marka malaha imika in laga joogo 6 bilood 7 bilood waxaa soo gaadhay inaan diyaar nahay. burburkii ka hor dalka waxaa ka shaqayn jiray lacago shilin soomaali ah, balse markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ahayd ayaa lacagtii shilinka soomaaliga ee la isticmaali jiray meesha ay ka baxday, waxaana keliya lacagtaasi ka soo hiraya 1,000 shilin oo meelaha qaarkood aan laga isticmaalin. deegaano ka tirsan gobollada dhexe ayaa lagu soo warramayaa in lacagta 1,000 shilin aan laga isticmaalin, taa beddelkeeda la isticmaalo adeega e v c-ga, iyadoo dadka ku dhaqana sidoo kale deegaano kale ka tirsan gobolkaasi hiiraan iyana ay caqabado ay ka haysato dhinaca isticmaalka lacagaha shilinka soomaaliga oo gebi ahaanba lacagtaasi halkaa laga diiday. maamulka somalilan ayaa uga digay dhalinyarada kasoo jeeda gobolada waqooyi inay u safraan magaalada muqdisho. umulkheyr abuukar cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. war ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee maamulka Somaliland ayaa digniin loogu diray dhalinyarada ka soo jeeda Somaliland in ay safar ku yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Jaamac Maxamuud Axmed gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ayaa digniin adag u diray dhalinyarada ka soo jeeda Somaliland ee u yimaanaya safarada magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku muujiyay in dhalinyaradu ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan fursada uu sheegay inay xukuumaddu ugu talagashay dhalinyarada Somaliland. wax kale oo gudoomiyuhu laablakac ku tilmaamay fursadaha ay dhalinyarada Somaliland ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ugu dal leeyahay burburinta qaranimada Soomaaliya, waa sida uu hadalka u dhigay. Mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland waxay heegan ugu jiraan in ay fuliyaan siyaasadda dhalinyarada oo ay wakiil ugu yihiin madaxda Jamhuuriyadda Somaliland oo ahmiyad badan u haya dhalinyarada, ayuu yiri gudoomiye Jaamac Xaaji Axmed. Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii dhalinyarada ka soo jeeda Somaliland ugu digay in ay tagaan magaalada Muqdisho ayna ilaalsadaan qarannimadooda isla markaana ay ka digtoodaan gacan haatiska ay ugu gacan haatinayaan dowladda federaalka Soomaaliya. maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay sababta uu mamnuucay adeega Forex. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa waxa uu sheegay in Forex ay dhaqaalaha dalka ay caqabad ku tahay, sababta ay u mamnuuceen ay sidaasi tahay. waxa kale oo gudoomiyuhu sheegay in ay tahay qaabka ay u shaqeyso Forex iyo in aysan cadeyn sidaas la markaana shacabku aysan ahayn kuwa ka hadlayo. maalmahan dambe waxa la yiraahdo Forex qoftii yaqaan inuu khayr leeyahay asal loo sheegi doona, laakiin aniga shakhsiyan waxaan u arkay inuu dhaqaalaha Soomaaliya dhibaato u yahay. yacni dad meelo kale ka soo abaabulay shirqoolna inay leeyihiin aniga aragtidayda waa sidaas. dowladda Soomaaliya runtii waa ka fariisatay marka laga hadlayo lacag bangiga dhexe dowladda oo wakiil bangiga dhexena arintaas wuu joojiyay. annaga ka maamul gobolka Banaadir ahaan waxaan joojinay Forex-ka inaan diiwaan gelino. kuwa hore loo diiwaan geliyay hadday jiraanna ayada yacni su'aalaheeda iyo axwaalaadkeeda xaalad dib u eegis aan ku samaynin. sidaa darteed Forex-ka aniga inta aan ka fahamsana waxa waaye waa khiyaano aan dadka fahmi karin oo la mid ah يعني مركب ملايقة بدل لقيت دبنا بعدين لو مقالين ليدا هي هيلب لو كليا مركب هذا بدل وده تورا ملايقة مركب هيلب كليا راي أو لك ماجا مقالين تيرو لقي والمسؤول جيدا مركب واحد راه متقارن ذيك المسيرة يا حواير مركب لسيو أو لو سوق مشان فايدة بدل ما قاعد يتهلا بنسلا أمل ما قاعد وسوق أنا ماشوا أو شباب لكن ما هو عد ضمير وقع مجرته ضمانة مجرته هذا ضمانة جرته ويجرته سدا تاي إن اللي يراه وأباهنا هاي أنا مسؤول أنا كسر دتك مركا دتك هذا سول هذا حاجة سول كلا تجامل إن عقلي حلس أنت اللي في هذا نقول كل اللي بقوي سيد بركات نقول كل اللي بقوي وهواي أنا سكان مثلا دتك كغير ما هو مسيء هذا المشكلة كلها جرته مركا وافق عقلي أو أي قوي kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo ka hadlayay mamnuucista ay ku sameeyeen maamulka gobolka Banaadir adeegga Forex.
shaqaalaha maamulka puntland ayaa waxay ka cabanayaan mushaar la-aan haysa. mahad mutawakil ayaa mar kale warkaan inoo faahfaahinaya. qaar ka mid a shaqaalaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay inaysan wax mushaara ka qaadan maamulkooda muddo ka badan 2 bilood. shaqaalaha oo diiday in magacyadooda la xigto iyo weliba goobaha sida gaarka ay ugu shaqeeyaan ayaa sheegay inaysan ogeen sababta wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland u siin weysay mushaarkoodii, islamarkaana aysan awoodin in arrimahaas xilligan ay ka hadlaan maadaama ay ka cabsi qabaan in gebi ahaanba shaqadooda ay waayaan. sidoo kale ila ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa ka gaabsaday in laga xigto magacyadooda ayaa xaqiijiyey inay jiraan qaar ka mid a shaqaalaha dowlad goboleedka puntland oo aan weli mushaarkooda helin xilligan. arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli ay jirto cabasho kaloo ka imaanaysa ganacsatada magaalada gaalkacyo. ay sheegeen wasaaradda maaliyadda puntland ay ku kordhisay canshuurta. cabashada ganacsatada gaalkacyo waxa ay keentay in muddo 3 maalmood oo xirmo suuqa weyn ee dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo. dhammaan goobaha ganacsiga waqooyiga gaalkacyo waa la xiray khamiista aynu soo dhaafnay, waxaana ganacsatada u yeeray ama way u yeertay warbaahinta si ay cabashadooda u mariyaan, balse iyaga iyo wariyaashiiba xabsi ayaa la dhigay inkastoo saacado kadib la sii daayey. wasaaradda maaliyadda puntland weli jawaab kama aysan bixin cabashada ka imaanayso ganacsatada gaalkacyo ee la xiriirta canshuur kordhinta lagu sameeyey iyo weliba ka hadalka dhinaca kale shaqaalaha dowlad goboleedka puntland qaarkood oo aan weli mushaarkooda helin. mahadsaned mutawakil. halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaana dhegeystayaal waa radio rugsan 94.4 megahertz. markana akhbaaraadkii caalamka. askar turkish ah ayaa lagu dilay dagaalada ka socda gudaha dalka liibiya. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan waxa uu sheegay in ay ciidankiisa khasaare kala kulmeen dagaal ay maleeshiyada khaliifa haftar kula galeen gudaha dalka liibiya. madaxweynaha oo shalay ka hadlay magaalada ismiir ee galbeedka turkiga waxa uu tilmaamay in ay dhowr askar kaga shahiideen turkiga, isla markaana ay khasaare xoogan u geysteen maleeshiyada khaliifa haftar iyo ku dhowaad 100 calooshood u shaqaystayaala oo u dagaalamaya kooxdaasi. madaxweynuhu ma uusan cadaynin tirada rasmiga ee askarta turkiga looga dilay gudaha dalka liibiya. bishii janaayo waxay dowladda liibiya bilowday inay ciidamo u daabulaan liibiya si ay u taageeraan ciidanka dowladda qaramada midoobay ay aqoonsan tahay ee GNA ee dagaalka kula jira maleeshiyada LNA ee uu khaliifa haftar hogaamiyo. xiisada colaadeed ee liibiya waxay sare u kacday sanadkii hore kadib markii ay kooxda khaliifa haftar ay bilaabeen guluf ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan caasimada dalkaasi oo haatan xarun dhexe u ah dowladda dalkaasi. ugu dambeyntiina nin ku eedeysan in uu dhaawacay imaam masjid ayaa dacwadiisa dib loo dhigay. daniel harton oo 29 jir ah waxa uu shalay ka soo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada London kadib markii uu khamiistii hore toorey ku dhaawacay imaam masjid ku yaala bartamaha London. eedeysanaha oo la sheegay in uu ahaa derbi chief ayaa lagu soo oogay dacwadaasi, waxaana boolisku ay sheegeen in uusan weerarkaasi ku lug lahayn weerar argagixiso, waa sida ay hadalka u dhigeen. dacwad ooge lagu magacaabo Danya Dogra waxa uu sheegay in uu eedeysanaha dhaawacay imaamka lagu magacaabo Rafaad Maglaad oo 70 jir ah, kaasi oo laga dhaawacay garabka midig. imaamka waxa uu sheegay in uu cafiyay eedeysanaha balse uu ka xun yahay weerarka loo geystay. dhinaca kale garsooraha maxkamadda London waxa uu amray in eedeysanaha lagu sii haayo xabsiga ilaa dacwadiisa labaad oo dhici doonta soo socoto ee Maarso 20keeda. warkii subaxnimo dhegeystayaal oo aad kala socoteen radio rugsan saaka waa inaga inta. waxay naga xasuusinay cidii uu seego warkaan iyo warar wixii caalamka ku soo siyaada inay si sahlan uga baari karaan barteena internetka ee radiorugsan.com. idaacadda rugsan soomaalida wanaag iyo samo u tilmaamkeeda jid suuban ku hagideeda wada saxiix marinteeda rugsan baa salaxaysa. idaacadda rugsan soomaali dhaqankeeda gabay iyo suugaan maansada samaynteeda hidda suuban warinteeda murtidoo la soo xulay rugsan baa u salaxaysa. idaacadda rugsan saaridda ogeysiis iyo dhah u samaynteeda suugaan ku larideeda saad fiican ku sharaxeeda badeeca la soo raray ee suuqa iska taal si fudud u gaarsiinta dadweynaha
arrimaha u sahlideeda rugsan baa u sallaxaysa idaacadda rugsan soomaalida warsiinteeda mid sugan u tabinteeda xaqiiq ugu sallaynteeda si xun wax u sheeg ka celintiisa rugsan baa u sallaxaysa